sidatan gaalkacayo baraawe marka iyo jawhar gaalkacayo baraawe marka iyo jawhar ba halka ku jira si toosa sideen u dooranayna ayay u aadi doonaan ayagana waxa weeyaan waxa anaga igu soo aaday baladka ugu horeeyana furo aye baladka waxaan oo furaya afayeenka maanta dhan hadlay waa coachima waa coachki dabaysha جوهر يقو waayahay jawhar waa group A muqdisho baydhabo laascaanood iyo jawhar group A waa dhameystirmay waa muqdisho baydhabo laascaanood iyo jawhar waayahay kooxda dambe oo la soo saari doona iyagana biib ay ku dhici doonaan laakiin waxa weeyaan waxaan ku casunnay oo yeeri doona coach Maxamuud Yaasiin ayaa soo saari doona waa kooxee afarta kooxood mid kamid ah waa la soo qabtay jawhar laakiin wuxuu soo saari doona marka baraawe iyo gaalkacayo marka baraawe gaalkacayo waa joog ana arkay gaalkacayo si toos ah waxa ugu birtay group B waa Ceerigaafo Beledweyn Xudur iyo gaalkacayo Ceerigaafo Beledweyn Xudur iyo gaalkacayo group B waayahay qofka kale oo waxa weeyaan halkan aan uga yeerayno waa coach Buuhodle ayaan ku casunnay bal inuu waxa weeyaan isagana waxa weeyaan uu inoo baraawe iyo marka labadaas bal si tageli doonta waa arki doonaa marka ayuu soo qabtay waa group C Garowe Garbaharey Kismaayo iyo marka cadeey wala hawleer la shid maayo group kasta karkar buu isku shidayay baladka ugu dambeeyana waxaan soo qabanaynaa u yeerinaa kuna sharfaynaa waa gudoomiyihii doorashada gudoomiye Baasaweyne soo dhawow gudoomiyihii doorashada gudoomiye Baasaweyne waa uu maqan yahay waa kana waa gudoomiye doorashada waxa weey aad ka qurux badnayd inoo gudoominayay waa gudoomiye Baasaweyne baladka ugu dambeeya oo afraad ayuu soo saari doonaa bal waa arki doonaa iyadana magaalada ay noqoto waayahay waa baraawe group D Dhuusamareeb Boosaaso Bu'aale iyo baraawe Dhuusamareeb Boosaaso Bu'aale iyo baraawe waa group D halka waxa inoogu dhamaaday groupiski group A Muqdisho Baydhabo Laascaanood iyo Jawhar group B Ceerigaafo bal daahirna waa arki doonaaye daahiro bal bulshada tus waxa soo saarto daahir ciise Bu'aale wuxuu soo saaray Bu'aale si toos ah waxa ugu biirtay Dhuusamareeb iyo Boosaaso iyo Bu'aale Dhuusamareeb Boosaaso iyo Bu'aale aad ayuu maadsan yahay daahir shukran waaye kooxda ugu soo horeyn doonto oo Muqdisho aadi doonta kooxda labaadna waxay aadi doontaa Ceerigaafo ta saddexaad Garowe ta ugu dambeysana waxay aadi doontaa Dhuusamareeb waayahay afar qof ayaan ku sharafnay iyagana afartan waa the best player koobkii hore Cabdirashiid Guuti meena jooga Cabdirashiid Guuti ma joogo laakiin waxaanu ku bedelanaynaa Mahad Lefti noo kaalay waa miisiga waxa weeyaan in si gaar ah
mahadlafti ayaan nakasti ku bedelanay waa ciyaartoy talentii halis badan ilaahay baan iga horkeenin anigoo balaayara anoo oday abu ugu soo beegmay baxar baan geli lahaa mar hore anoo balaayar haddaan ka hor iman lahaa ciyaartoy nooca kan oo kale ah mahadlafti waa ciyaartoy aad talentigiisu wacan yahay balbalootyadaas ayuu walaaqi doonaa kadibna mid ayuu inoo soo saari doonaa si fiican bulshadana tus wareeji bal magaalada aad soo qabatid laakiin si toosta ee bay u aadi doontaa magaalada ugu horeysa ee bay aadi doontaa waayahay magaaladee buu soo saaray baydhabo si toosa waxay u aadaysaa group A muqdisho ayay aaday baydhabo group A ayay si toosa u aaday mahadlafti aad ayuu mahadsan yahay leo aad baa u mahadsan tahay waayahay qofka labaad oo aan ku casunnay sidoo kale inuu baloodka inoo soo qabto magaaladaasi waxa weeyaaniin xaggan weeye waa coach Najib waa coachkii koobka qaaday macalinka alayo bal halkan walaaqo waxa weeyaaniin saddexdaas bal waxa way B noo soo qabo magaaladii B aadi lahayd adigoo walaaqaya bulshaweentana tusaya hey ceergaafo magaaladii ku biiri lahayd oo meel la aadi lahayd inoo soo qabo macallin Najib waa u furay talo magaalada soo saari doona beledweyn B ayay aaday beledweyn B ceergaafo ayay isku meel galeen aad ayuu mahadsan yahay waxa weeyaan coach Najib oo isaguna soo saaray qofka saddexaad aan u yeerayo oo baloodka saddexaad soo qabanaya waa bortierigii ugu fiicnaa the best keeper Xasan Caanaboore caananiido waayahay waa keeper halis badan oo safekiisuna boqol uu yahay xasan ayaan ku sharafnay mar hadduu noqday boortii ugu fiicnaa bal labada walaaq kadibna waxaa soo saartay Garowe magaaladii raaci lahayd Garowe labada magaalo waayahay talo magaaladee ayuu soo qaban doonaa Garowe xagee yaa u iman doona Garbaharey Garowe waxaa moodaa maxamuud yaasiin iyo coach Timo inay afka iska galeen waayahay qofka afraad aanu yeeri doonaa waa kuma oo baloodka afraad furi doona waa respect team ninkii qaatay waa Sheekh Fuad inuu baloodkaas inoo soo saaro ugu dambeeya ayaan ku casunnay Sheekh Fuad waa respect teamkii ugu akhlaaqda fiicnaa koobkii hore war hadda bulshay haddaad akhlaaqda ilaalisaan koobka dambe waxa weeyaan arrimo waaweyn ah ayaa la idinku sharfi doonaa akhlaaqda in la ilaashto waa wax base ah maxaa yeelay walaalkiin maanta meesha wuxuu ku yimi tiimkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo hoggaan wanaagiisa sheekh waxa weeyaan waa kooxda ugu dambaysa oo D geli doonta dhuusamareebna daris la noqon doonta waa kuwee waa boosaaso ayuu soo qabtay waa Sheekh Fuad aad ayuu mahadsan yahay shukran ayaan ku leenahay boosaaso dhuusamareeb D ayay wada galeen iyaguna waaye afar kale ayaa iyaguna aanu soo qabanaynaa afarta kale iyaguna sidii hadda kuwii hore u aadeen ay u aadi doonaan laakiin waa afartee magaalo aan idin sheego afarta magaalo waa Bu'aale Xudur Laascaanood iyo Kismaayo afarta weeye waa Bu'aale Xudur Laascaanood iyo Kismaayo waayahay anu yar bal afarta qof aanu ku sharafnay iyagana inay soo qabtaan balootyadan waa gudoomiye ku xigeen Bashiir Naaleeye inuu baladka ugu horeeyo furo qolyahan Naaleeye soo dhawow bal walaaq afarta ku badood wax midaba iyo wax kala iyo wax laga garanayo Ilaahay amaradii ma jiraan waa yahay laakiin ee bay aadaysaa meesha uu soo saaraa ee ayay aadaysaa waa afartan magaalo Bu'aale Xudur Laascaanood iyo Kismaayo bal teebuu soo qabtay Laascaanood ayuu soo qabtay Laascaanood waxay aaday si toos ah Laascaanood si toos ah waxay ugu biirtay waayahay balodka labaad qofka soo qabanaya aanu yeero waa Lejanjudac ayaan waxa way halkaan isagana ku casunnay bal inuu balodkaas isagana soo qabto labaad oo uu ku daro Ceergaafo iyo Beledweyn inuu magaalo kale ku daro saddexaad magaalada ku biiri lahayd waayahay Laascaanood waa la soo saaray laakiin waxa ay Kismaayo Xudur iyo Bu'aale miyuu soo qaban doonaa mise Xudur mise Kismaayo Allahu a'lam taasu waxa weeyaan isaguna odaygaas lejankaasi bal u furayaa waa Judac kooxdeebu la soo bixi doonaa waxay toos ugu biiri doonaan B Ceergaafo iyo Beledweyne ayay si toos ah u aadi doonaan Xudur ayuu soo qabtay
xudur si toos waxay u aaday B xudur B ayay si toos u aaday aad buu mahadsan yahay judhac waa yahay ta ugu dambaysana waxa soo qaban doona sidoo kale may ugu dambaysee ilaa hadal kuma jiree leejan maxamed barre asaguna wuxuu soo qaban doonaa maxamed barre baloodka saddexaad ayuu soo qaban doonaa ama kooxdiis bu'aala soo qabsadaa armuba bu'aala soo qabsadaa oo afka u geliya Garowe iyo Garbahaare bal waa arki doonaa kooxdiisa bu'aala inuu la soo baxo ama inuu la soo baxo waxa weeyaan waa Kismaayo ama bu'aale maxamed barre labadaas mid soo qaban doonaa waaye inuu kooxda la soo bixi doonaan baa malaynayaanu saadaashaad baan isugu fiicannahay Kismaayo si Garowe Garbahaare Kismaayo Garowe Garbahaare iyo Kismaayo waa yahay qofka afraad aan ku casunnay waa Daahir Ciise إن شاء الله مالين لو أقارن دونا لكن واحد قصده حكى بلا متى ما وقتها هي إن نظام كيو كرامة دام كلنا يدل كنا قار كم إذا أنا كدل كنا كدلني وكوكرني لكن واحد كقرح بدل مجرى قفك ولا هذا وهل مل سوى ذا إماتا وكوذا هذا الشان يعني برشة صوماليين على كاسة نوضة دحين مركا آد وما سنتهين رنتي إن شاء الله إلهنا قرب يستاجو لما أنتنا ونقرب يستاجتنا خاصة ضد فانس كإيمانا يا فيري وقتنا قاعدتنا أنا إيماتان وحكي لك ما صوماليين ما دلوا هذا نقوم هاد علينا رنتي قدينا قدومي كحجينك معلم موسى كوتشتيمو شابيلو يعني رنتي يجا نفتر كذا وقت بيجليهن أنا أريد أسوق قابلنا رنتي عاد بوسوق يسال مالين كستو قف كستو حويدنا قرمال عيار دوالا قار وقت جيسن إن شاء الله حرجنا نسق روح بدن سنة دامسن أن أسمين وايو مالين هوري وحان تبني جيم كي under 20 جا رنتي ما أنت تيم ليتس مرة هاي لكن ساوث السودان رنتي كبد هدي نقط وكسرنا في فرانكين زادتها هدي نقط خبرة وكبدنا لكن سيبنا نقرأ نقول كاس أنا حرجينا إن شاء الله هدي لا وقت جاس نسيو أنا كحول إنه تيم هالكن كحول إنه قرن كالله هذا إنه واي وحين نقول كرتاه وحاول تيم كفي عنه كونه كبد كقرحون بدل سمين كره واسكعلم كرنا من كاس لكن قول درانا قول عبد لكن إن شاء الله وحرجينا أنا كن نفتر كان وحكي صوصا وايد اللي يرب بدن بمشان جوكتا واللاعبين رنتي آدوا في عنه وحكي قبل كره وقرنتي قول درادو اسكحونتها لكن راح نقبل كرنا ملان هدر لكن إن شاء الله بدني ماذا أنا كوين هدر إن شاء الله وقارد دون مالم runtii aad baan ugu mahadcelinahay Ohio Garden runtii balanqaadku uu sameeyay hadda tiimka hore guuleysanaya hadda ogaada casho sharaf balni diyaariyay waxaan lahaa maybe inuu ku dari lahaa loserska laakiin way taas ugu muhiim insha Allah hadda waxaan ka baryayaa nidaamka aad in loo ilaaliyo كم يدهدر تيم كلاس سيزون قاتي مثلا تيم كشرفت بنيت بلدويني شيخ فؤاد يعني الريسبكت مهم ده ديسبلين كأو مهم سن ديسبلين الآن هدو جرو هدو وحبكم من الجارسان وحنجا عدسنا يا عيارتوي ذا جدي جودة تيمية ذا كل جين وحمودنا هاي الشرف حشمت يونان على كاس نجود السرية إلهي نجود السرية كلنا تاس هديد المسلمنا هاي أقول صدق تاس مركوه أنا إلهي كب قدان وحن كده ذالين أنا كدنا عن لكم كده إن الشرف حشمت كرامة ينظام نقوم معمولنا يعدالة إن شاء الله تاس كده ذالين وبالله توفيق نحكي صور جينا يا كوتش تيمو هذا يمثل هي قدومية هي
bulshooyin saan wax idinku sheegay bay wax u dhacayaan ciddii aan fahminna halkay ka fahmaysaa si toosa waa yahay balootyadii ayaanu furaynaa halkaas 4 magaalo ku jirta hadda 4 magaalo halkaa ku jirta waa idiin sheegay waa Garowe waa Cerigafo waa Dhuusamareeb waa Muqdisho soo xagee bay kala aadayaan kubadda ugu horeysa ee bay aadaysaa kubadda labaadna B bay aadaysaa kubadda saddexaad C kubadda afraadna D waaye dad marti sharaf ayaan ku sharafnay laakiin waxa weeyaan maqaamku waa la kala leeyahay kubadda ugu horeysa ee isku aadka kooxaha gobolada Soomaaliya metelaya caasimadahooda waxa furaya gudoomiye Cumarios kubadda ugu horeysa gudoomiye soo dhow warba hoy bulshada halka nala socdo musuq baa laga shaqeeyay cid baa cid lala doontay awoowe walaaq si fiican bulshadana wada tus waad aragtaan بعد وياهي كبدي ugu horeysay waa magaalada horto laakiin waxay aadi doontaa si toos ah group A si toos ah group A Mogadisho caasimadii dalka gudoomiye waa asiibay Muqdisho group A Muqdisho caasimada dalka group A Muqdisho caasimada gobolka Banaadir ahna caasimada dalka Soomaaliya gudoomiye waa asiibay gacan wanaagsana balodka labaad waxa inoo soo saari doona Macalin Xasan oo ku sharafnay isagana Macalin Xasan soo dhow ay aruuriha waayahay macalinku waa walaaqaya waayahay warwaad aragtaan hoy magaalada labaad xagee bay aadaysaa si toos ah B iyadu B bay caadi u aadaysaa bal macalinkaan aragno isagana kooxda uu inoo soo saaro talo waa kooxdee Cerigafo B bay toos u aaday iyaduna Cerigafo B ayay si toos ah u hogaaminaysaa iyaduna waayahay baladka saddexaad waxa inoo soo saari doona walaal qaali inagu ah garoonkana inoo saamaxay inuu ina siiyo safarna dalka dibadiisa ugu baxaya 9 bisha dalka Canada aadaya rag badan baa wacid markaa ku bilaabay inay sii barbartaan bal waayahay walaal khayr soo dhawow khayr labadaas baloot oo haray ta uu soo saaro si bay noqon doontaa khayr waxaan leenahay safar salaama nin nagu qaaliya Garowe caasimada gobolka Nugaal si gaarana dawladda Puntland Garowe si ayay si toos ah iyaduna ay waxa weeyaan in u hogaamin doontaa waayahay balodka afraadna waxaan ku casunnay si iidle CR7 oo isaguna ah walaal safraya lana dhashay khayr iidle ayaan ku sharafnay waxa weeyaan in isaguna inuu nagala qayb qaato tartankan balodka inuu soo saaro iidle soo dhawow waliba nasiib badan yahay bal wuxuu la soo bixi doono waa dareemaya anigu waayahay iidle CR7 bulshada u soo jeeso bal maxaa soo saari doontaa waayahay iidle muxuu soo saari doonaa Dhuusamareeb waa magaaladii uu u ciyaarayo hadda ciyaarta ugu dambaysa ee uu ku dheeri doono wadankan magaalada Kampala kooxda uu matari doono ayuuba la soo baxay iidle macalinka gudoomiyaha ganacsatada iyo dhammaan baleeyarada iyo koojadka dhammaantiin horta waa idin salaama galabnimo wanaagsan waqtigoona hay darteeda aniga war badan ugu soo talagelinay waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo associationka sportiska shaqadan quruxda badan mataqaana intaan hadda Kampala joognay Evan ka dhicin magaalada iyo horumaradan hadda noo bilaabo wadada cagta noo saar sportiska aan dhihi karo dhadhan iyo waxay u yeeleen xoogaa yar mataqaana suugeen waxa waan bogaadina waan u hambalyeena waxaan u rajeynayaa shaqadina intaan ka sii wadaan wixii mataqaana oo xageena legendadan waxaan u daayay legendan judac aad buu mahadsan yahay gudoomiye maxamed barre oo aad ku wada xasuusataan mar walba koobab kala furo haddoosan ku jirin waxa xamaasad la'aan koobab ku noqon lahaayeen kooxda faca weyna karan waa ninka noo aas-aasay hadda sanadkan 2 koox waaweyn buu ku leeyahay aad baan uga mahad celinaya waxyaalaha looga baahan yahay kubadda
aan u soo noqdo qodobkan ma garanaysa yani munaasabadda ah iyo guddiga waxaan u mahadcelinayaa guddiga sportska oo sharafta leh oo aynu doorannay oo halkaan aan isugu keennay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay guddigaasi sanadkan uu noqon doono koob ka qurux badan uusan madow noo maamulayn oo annagu aan ismaamulayno oo aynu doorannay labadii as dhihi karno waa labadii ugu macquulsanaa gudoomiye Cumariyos iyo gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye Naaleeye waa laba nin oo aad u khabiira kubadda ku xeel dheer insha Allah waxaan rajaynaynaa inta labada ay qaadan lagu wada dayan doono midda kale oo aan rabo waxa weey hadaaye gudoomiye speaker Timo wuxuu yiri legendiska oo odayaasha la doortay war odayaal ma nihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan soo buufsan doono magacay ku qoran tahay da'du waa number taageerayaal badan baan leenahay shacabka maandhay baan ku soconaa waa nala soo codsaday waxa weeye amar taageerayaashan ku nimi insha Allah waxaan rajaynaynaa in hore loo socdo guul iyo gobonnimo aan idin rajaynaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan war dadka la soo xulayo iyo maamulada iyo intaas soo kooxood systemka iyo akhlaaqda iyo Soomaalinimada aynu ilaashano waxa weeye dad baa lacag waxay ku soo bixiyaan garoonka iridda ka soo gala inay idin daawadaan bal nidaamka iyo systemka iyo anshaxa aynu ilaashano insha Allah guul baan Ilaahay ka rajaynaynaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum koobka hore inuu xasuusiyo iyo waxyaalihii dhacay waxa weeyaan in fadlan halkan kala wada socono dadkii joogay dadkii aan joogin aad iyo aad u mahadsan yahay Timo xasuusta haddaan ku hormaro koobka hore waxaan ku xasuustaa coachkii ugu xamaasadda badnaay ayuu ahaa coach Timo ergaabo wata xilligaas waa mahadsantihiin runtii koobkaas koob cajiib oo ahaa inkastoo gobolada caasimadaha ay nagu yaraayeen 13 caasimadood ay ka qayb galayeen waxa uu ahaa koob aad u sharaf badan kooxda Garowe ayay ahayd kooxda ugu horeysay ee ku guuleysatay koobkaas oo waliba difaacanaysay ma sha Allah sanadkan waxaan u rajaynaynaa inay difaacdaan best player-kii ugu fiicnaa sanadkaasi hadduu na maqlayo ama uu halkan joogo waxa uu ahaa ergaabo u ciyaarayay Cabdirashiid Guuti baa la yiraahdaa ninkaas nin aad u gaabano dhalis badan oo ahay orod badan inkastoo xawaaraha waayadaan dambe uu aad u yareeyo orodka la wada bartay best coach ninka Garowe hogaaminaya Najiib Cabdirsaaq isagana waan u hambalyeeynaa best goalkeeper isagana waan u hambalyeeynaa Xasan Caana Booro hadduu maqlayo waxaan kaloo u hambalyeeynaa best goolkii ugu quruxda badnaay oo dhasho horta yaa yaqaan goolkaas yaa xasuusta goolkii ugu quruxda badnaa ninka dhaliyay aye والله runtii waa khayr oo ahay gool haye jiifo difaac jiifo oo wada rafanayo ka dhaliyay neef la qalay amal maadaama hadda naga socdo insha Allah taala asagana waan u hambalyeeynaa waxaan kaloo hambalye halkaan uga direynaa respect team best teamka ugu edabta badnaa ugu akhlaaqda badnaa oo hogaaminayay coach Sheekh Fuad waa Beledweyne aadan ayagan ugu hambalyeeynaa maadaama ay ahaayeen kooxda ugu edabta badan ee tartankaasi ka qayb gashay aan idin xasuusiyo insha Allah taala hadda tartanka waxa ka qayb galaya 16 magaalo sida uu idin sheegay coach Timo waxa waaye magaalada Baraawe waa legendiska waaye moogii magaalo ahaan iyo caasimad ahaan looma soo qaadanin saddex caasimadood oo kala naga maqan walaalahan waqooyi galbeed magaalada Hargeysa waxa uu tahay magaalo madax gobolka Awdal baa jiro oo waagi hore Boorama la dhigi jiray hadda laakiin hadda caasimad waxa uu yahay magaalada la yiraahdo Baki iyo gobolka la yiraahdo Togdheer ee caasimada u tahay Burco waa fiicnaan horta magaalooyinka iyo goboladiina inaad kala barataan runtii 18 gobol oo magaalo wadanka Soomaaliya waan u hambalyeynaa insha Allah taala wixii barnaamijka halkaas ka sii wadada dadkaas legendiska aadan insha Allah taala hadda aan magacawnay waxay noqon doonaan dadka darowinka nooga qayb gali doona insha Allah taala coach Timo ayaan ku wareejinayaa waa maasantiin ayuu mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeen Bashiir Naaleeye oo waxa weeyaan in koobkii hore iyo talantiyadii waxyaalihii soo dhacay dib inoo xasuusinayay dadkan halka jooga dad haddii aan waxa weeyaan mikrofoonka waayahay su'aalo yaryar oo kor ka soo dhicitaana ayaan waxa weeyaan bulshada la dhex maraya مسؤولين بدن بهالك فدية waxaa ka mid ah Mr. Chanoqo su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo koobkii hore maxaa ka xasuusataa
garowna loogu saambaxiyey waayahay coach maxamed yaasin baa soonaalka fadhiya coach maxamed yaasin koobkii hore sidoo kale waxaad wadatay markaas gaalkacyo ood coach u ahayd saan waxa weeye xasuusto marka bal maxaad ka xasuusataa koobkii hore laqdooyinkii kugu qosolka badnaa ama kugu layaabka badnaa ama kugu farxadda badnaa maxaa ka xasuusataa runtii koobkaas xasuus baan lahaa waxaan ka xasuustaa magaalada hadda aan wata inaan reebay waayahay macalin najiib baa halka fadhiya isaguna oo ah coachkii koobka qaaday ama garowa coachkeedii coach najiib koobkii hore maxaa ka xasuusataa sidaas oo kale bal su'aalaha walaalay aan weydiiyey adigoo ku weydiinay wallahi waxyaabo badan baan ka xasuustaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo ah dee farxaddii fiinu kusoo dhammaaday inaan koobka guulaysanay taasaan ka xasuustaa aad baa mahadsan tahay sidoo kale dad fara badan baa fadhiya xuseen koobkii hore maxaad ka xasuusataa bismillaah waxyaabo badan aan koobkaas laga bartay waa markii ugu horeysay aan koob magaalooyin la dheelay waa markii ugu horeysay laakiin si macaan badan u dhamaaday nidaamkiisana aad iyo aad u hersareeyo waxyaabo badan oo qosol aan ka xasuustaa laakiin hadda inta kama sheegi karo maalin dambe aad inala socodsiinaya aad baa mahadsan tahay sidoo kale ciyaartooyaalka fadhida waxaa ka mid ah aadan koobkii hore saaxib maxaad ka xasuusataa coach Timo saaxiibagteeda qaali ka ah koobka hore waxaan ka xasuustaa maadaama uu ahaa kii ugu horeeyay oo gobolada lagu qabto waliba dalka Uganda khaasatan magaalada Kampala oo aan ku dhihi karo waxaan ka mid ahaa guuleystayaashii yani xasuus player ahaan markii la fiiriyo waxay noqonaysaa baalka dahabka u gali karta aad baan ugu hambalyeynaya coachkayga hor fadhiya guul baan wada gaarnay sidoo kale waxaa fadhiya mas-uuliyiin ka mid mas-uuliyiinta xilligaas koobkaas aadka u daawanayay cabdi muuse koobka hore maxaad ka xasuustaa bismillahi raxmaan raxiim dhammaan horta waa salaamayaa waxaan ka xasuustaa Timo inaan adigu ahay coachkii ceriga aho garowna ee koobka qaaday uuna ahaa koobkii ugu horeeyay Soomaaliya ugu timaado kana waxaan rajaynayaa inuu nagu dhaco si qurux badan oo sharaf iyo karaamadiisa wata